waxaan diyaarinaynaa casharkaas wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha social media la isticmaalo mid ka mid ah WhatsApp-ka. WhatsApp-ku wuxuu noqday daruuri waqtigan la joogo lagu kala faa'iidaysto waxyaabo badan aad isku isticmaalaan maadaama sida yahay dad waaweyn dhalinyaro ah dad walba oo isku bay noqonaysaa waxbarasho hadday yihiin kuwa cilmi hadday yihiin kuwa fiilis kale ama waxyaabo kale hadday yihiin kuwa qaadhaan iyo sidoo kale hadday yihiin kuwa aqooneed iyo tacliinta inta badan moobilada ay seenaan quality-gooda aad buu isaga yaryahay dadku iska howlo badan yahay marka waxaa dhacday groups-ka lagu wada jiro in dad fara badan ay ka cabanayaan fideoyo iyo recordno iyo sawirro aad u badan oo moobiladoodii ka buuxiya oo kasoo galaya waxaan dhiganaynaa bal sida qofku u xallin karo aanu fideoyadaas moobilkiisa ugu dhacdhaci karin uu isaga xiri karo waxa weye WhatsApp-ka markaad ku jirto gudihiisa isagaa isticmaalayso tusaale ahaan sidan baa tiri WhatsApp-kii waa kan waxa weye official one-ka ayaynu furanaynaa markaad ku dhafato isaga uu kusoo baxo something waxbaa uu yaro raagay raalihaada markaad ku dhafato isana kale kusoo baxo aniga gurmiska ma ku jiraa masha Allah markaad sanoo kale ugu dhafato san marka kusoo baxaan already saddexdaa xidigood ayaad ku dhufanaysaa koonaha saaran anituso searching-ka qaybta ka xiga ee xagga u salaysta teemka qoray hoosteeda ayaad ku dhufanaysaa dabeedna markaad sidaas suulkaa ku tiraahdo waxaa kusoo baxaya foomka noocana ayaa loo baahan yahay inaad haddaba qayb ka mid a dooratid waxaad dooranaysaa setting halka hadaha moobilkaaga yacni ama WhatsApp-ka programkan settingkiisa markiisa ayaad ku dhufanaysaa settingkii markaad ku dhufato waxaa ugu saraysa waa ku qoran setting ayaan ku guda jirnaa setting waa markaad saas oo kale aad u timaado waxaad ku dhufanaysaa data and storage usage qaybta isticmaalka iyo kaydka daatada isticmaalaysaa ha noqoto ama wifi ama ha noqoto mid kale oo iyada network usage ha noqotee adigu midba hadba markay tahay marka qaybtan baad soo gelaysaa marka data and storage usage ku dhufatid waxaa kusoo baxaya media auto download ayaa kusoo baxaya saddex qaybood weeyaan waa when using mobile data waxaa kuu dariiru kudlay awliyaa keliyata when connecting on wifi markaad wifi isticmaalayso waxaa kuu dariya all media when roaming markaanad labada midkoodna isticmaalaynin waxaa kuu degaya no media waxba kuma degayaan marka anigu iminka markastoo aan data isticmaalayo ama kaarka telesom ama something aan isticmaalayo internetan isticmaalayo WhatsApp-ka waxyaabaha awliyaa oo dhan lasoo dira way igu soo degayaan waana auto weeyaan oo toos u download garoobaya marka haddii aan rabo inaan iska xidho waxaan taabanayaa awliyo ayaa iminka tigaraysa tigsaan ka qaadayaa okay baan leeyahay iminka wuxuu leeyahay no media waxba kuma degayaan marka data isticmaalaysa tusaale ahaan when connecting on wifi markaad wifi-ga isticmaalaysa wuxuu kule all media dhammaan photoska documentska recordingka videoska dhammaantood way ku degayaan wuxuu leeyahay marka ani waxaan samaynayaa afartan batigtaan ka qaadaya calaamada saxda ah waan ka qaadayaa okay waan siinaya iminka waxbay ma degi karaan no media markaan isticmaalayo wifi-ga markaan data mobilka isticmaalayana dadku inta badan data mobilka isticmaalaan ama hormooyinka marka waxa weeyaan saasaan isaga xidhay mar labaad baynu ka celinaynaa markaad settingka tagtid waxaad tegaysaa halkan aad magaca kaga qorataan iyo waxyaabaha weeyaan settingkan aan sheegaya marka data storage aad ku dhufanaysaa marka already qaybta markaad timaado qayb walba afarta ku tigtaarin baad ka qaadaysaa kawana sidoo kale ka qaadaysaa markaad aan isticmaalayna sidaas iska ahaanaya waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen oo aad wax dambe oo automatic u download garoosmaya inaan jiri karin inaan iska xiri kartaan aad iyo aad baan idin salaamaya waa faa'iido uun ku dhawaad iska aqoon badan iyo dadku dib kala aqoon badan yihiin waxaan rajaynayaa intii anigu intii garaadkayga ahayd aan garanayay inaan soo gudbiyey waxaanan filayaa in dad fara badan iyaguna aqoon hore u lahaayeen yaqaaneen farsamada aad iyo aad baan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh